بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. waxaan kusoo jirnay suuratul kaaf darsiga caawa wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 99aad ee suuratu kaaf ka mid ah. waxaa noo dambeysay qisadii yajuuj iyo majuuj oo dulqarnayn uu meesha ku xiray وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. تركنا بعضهم قاركود أيان كتغني يأجوج ومأجوج يومئذ مالنتاس أو صدق لبربرنا يموج في بعض قارك كلا أيوة سيد موجودي وكلام هركي ودحقلي واستحمر أيان تفسير كسواجرة وعكر المفسرين تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض جنجي إنسجي أي قيامة اسكو درسمي تفسير كسواجرة لكن سياق هراء كسعني تركنا بعضهم قار كود بان كتغني يومئذ مالنتاس oo sadiga maartay sadiga lagu xiray ay soo burburinayaan yamuuju fi ba'din qaarka kale ayagoo sida hirkii oo kale u dhaxgalaya waa markay soo baxaan oo dhulka fasaadiyaan oo xoolihii maartay ay fasaadiyaan oo ashyaadii dhan talfiyaan kulligeed arintaas waa qabla yawm alqiyaama wa ba'da ad-dajjal. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. نفخ والله أفوفي في الصور أرنكا قداشة ممكن السوداء يعني من كاس نفخ في الصور صور كي والله أفوفي فجمعناهم جمعا ضد كي ومركز كل مني وقيامتي إلا حسابه أي الله صو حاضريي وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا سورة قصة مرني وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا إلى نقول رميا قال هذا قيامة وحلق السمين أيوه إن جهنم الله بندق أيوه سي إمارة وأركان عذابك يا وحلا وتلقى لي أنت استنقلين به أرنكاس مركب نقول يا همي يمرق أسود دقدقي waxaa la keenayaa naartii jahannamo oo 70 kun oo malag ay hoggaanka hayso hoggaankii kastana 70000 malag yajruunaha wajiidayaan ayaduna baxsanaysaa idaa ra'atu min makaanin baciidin samicu laha tagayudan wa zafiiran yani ciil ay isla jarjaraysaa takaadu tamayazu min alghayb. وعرضنا جهنم أيام بندقنا يومئذ مالنتاس للكافرين قال ذي ما بندقنا أو أموجنا سيئ أركان عرضا بندقت عرضنا جهنم نارت جهنم أيام صوب بندقنا يومئذ مالنتاس للكافرين الله صوب بندقنا عرضا بندقت كافرين تسمع كوكوه الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. الذين واقوا كانت أعينهم إن يلقوا أي أهايين مركز الدنيا الجوغين في غطاء عن ذكري ضوال بأسارناي أنيقى حسيتان كيقى وإسلقوليين وإسلقترين وإسلقترين حتى إني أقبلان الراعان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وكانوا وحينا أهيين لا يستطيعون كوأن أود سمعا إنا يوحمقلان وأمرك إلهي يوحي وكرها بي إنا يقرتان ما يسأود كريم بلا يلغس اللذي شيطان بامارة عمل كودي وقرحيي مركز الله في عنتهين الذين كافرين وكوا
kaanat acyunuhum indhayaalkoodu ay ahaayeen fi dunyaa fii khidaa'in dabool can dikrii aniga xusitaankayga dabool baa saarnaay way dhala'aayeen sumun bukmun cumyun fahum laa yacqiluun wa kaanuu waxay ahaayeen laa yastadiicuuna kuwa aan awoodin samcan inay xaqa maqlaan afaxasiba aladiina kafaruu an yattakhiduu cibaadii min duunii wliyaa inaa actadnaa jahannama lilkaafiriina nusulan afaxasiba ma waxay u maleeyeen aladiina kafaruu kuwa gaaloobay an yattakhiduu yeelashada ay yeesheen cibaadii addoommadayda min duunii aniga ka sokay wliyaa'a inay ka samaysteen gacal iyo xiriir sidaas inay anfacayso oo wax taraysa miyay u maleeyeen maya malahaas waa khaldan yahay kalaa sayakfuruuna bicibaadatihim wayakuunuuna calayhim diddan afaxasiba ma waxay u maleeyeen aladiina kafaruu kuwa gaaloobay an yattakhiduu yeelashada ay yeesheen inay yeesheen cibaadii addoommadayda min duuni aniga ka sokay wliyaa'a yeelashadaasu inay anfacayso oo wax taraysa miyay u maleeyeen maya waxba uma tarayso innaa anagu actadnaa waxaan u diyaarinay jahannama naarta jahannamo la yidhaahdo lilkaafiriina gaalada nusulan meel lagu marti qaado nusulka waxaa la yidhaahdaa ahlu jannuhuna waa leeyihiin ahlu naarkuna waa leeyihiin nusulan min gafuurin raxiim waa tii ahlu jannaha lagu soo sheegay oo suuradaha u tegi doono ilaahay noogu sheegay nusulku marka waa waxa ka horeeya martiqaadka soo dhoweynta hore ayaa nusul lagu magacaabay innaa actadnaa jahannama naarta jahannamo ayaan diyaarinay lilkaafiriina ayaan u diyaarinay nusulan martisoor wixii lagu soo dhoweynayo marka hore naartaas marka lagu soo dhoweeyo jahannamo wixii ka dambeeya waa kasii daran yihiin marba meela la geynayo qul hal nunabbi'ukum bilakhsariina acmaala aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati اddunya wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna suncan sacd bn abi waqaas fii saxiixi اlbukhaari waxa uu maaragtay wariyey waxaa la weydiiyey aayaddaas qul hal nunabbi'ukum bilakhsariina acmaalan dadka khasaarada badan camalkooda dadkaas noo sheega la yidhi ahum lxaruuriya ma nimanka khawaarijta xaruuriya waa beledkii ay iskugu urursadeen markii cali bn abi aalib radia allahu canhu ay la dagaalamayeen meel kuufa ku dhow markaasuu yidhi sacd bn abi waqaas casharatu mubashariina biljanna ayuu ka mid yahay lah hum lyahuudu wاnasaara yahuud iyo nasaaro waa kuwaas dadka camalkooda ku khasaaray ama alyahuud fakadabuu muxamada sala allahu calayh waali wasalam yahuud nebi maxamed ay beeniyeen wa ama annasaara fakafaruu biljanna jannadii bay diideen oo dafireen wa qaaluu laa طacaama fiiha walaa sharaab cabitaan iyo cunitaan ma jira yidhaahdeen waalxaruuriyatu nimanka khawaarijta ah aladiina yanquduuna cahd allah min bacdi miihaaqih waa kuwa jebinaya cahdigii iyo ballankii alleh markii la adkeeye kadib oo dhiiggii muslimka ay bannaysteen oo saxaabadii nebiga ugu horreeyeen ilaa ay marka waa sii wadeen fa kaana sacd bn abi waqaas yusamiihim alfaasiqiin wuxuu ku magacaabaya xaruuriyada alfaasiqiin daacadii ka baxeen imaamkii maaragtay muslimku doorteen oo amiiru lmu'miniin caliy bn abi aalib ayay diideen laa xukma ila lilah bay yidhahdeen marka cali wuu fahmo wuxuu yidhi kalimatu xaqin yuraadu biha baatil laa xukma ila lilahi waa sax
laakiin ujeeddo kalaa ku jirta oo meesha ugu qarsoon oo waxay leeyihiin muslimka yacni in la dhex galo oo la heshiisiiyo cali iyo mucaawiya wax jira maaha waana diidan ayagu maslaxada la maslaxaynayay yani islaaxuna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha maaragtay diinka ugu waaweyn uu ka mid yahay dadka dhiiggood in la badbaadiyo ayaguna marka waxay yidhaahdeen marka hore cali bay la jireen kadibna asagay ku jeesteen oo waxay yidhaahdeen waxaa aqbashay taxkiim markii cabdullahi ibnu cabbaas uu la dooday oo yidhi adinku sidaasaa leedihiin ilaahayna wuxuu qur-aankiisa ku sheegay in maaragtay qofkii xaaji ah ama muctamira hadduu ugaar dilo ugaarkaas yaxkumu bihi dawaa cadlin laba qofaa xukumaysa soo xugun qof bini aadam uu xukumaya soo maha yaa xukumaya kitaabka dad baa xukumaya oo dhiiggii marka laisku sheeganayo daqarkii iyo maaragtay wixii dhacay dad baa xukumaya والصحيح أنها عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية سيدة صحيحة آيات وعام عام كتهي قف كستا وإلهي كعابده طريقة أن رالي لقاء هين يحسب أنه مصيب فيها وأم لينا إنه أصيبي حقي وأن عمله مقبول عمل كيسنا إلا أقبلي سلاس أمالينا وهو مخطئ وقفسنيه وعمله مردود عمل كيسنا ورقور الدين مركا بدعنا إيو خوارج إيو وحيالها الله متكاه رمبا أيضا إني ماشي أقفي عن جوغان يسكوها يستان لكن أحواك خلدا قل وحاتر هذا النبي محمد هل ننبئكم ما إذا كغورنا بالأخسرين هو خسارة بدن أعمالا حق شغادة يهوشا أعماشه ذا هو أي خسارة بدن تهي ما إذين ورهنا ما ورهنا ولا فسر مركب الذين ضل سعيهم ودتك عمل كودا يهلقن كودا يشغادة دي أي اللنتي في الحياة الدنيا نرشع الدنيا ذا أعمال باطلة oo shariicada aan ku dhisnayn oo mashruuc ahayn ilaahayna uusan raalli ka ahayn ayay maaragta sameeyeen ayaguna waa isla fiican yihiin aladiina dalla sacyuhum sacyigu waa shaqadii iyo halgankii ay qabteen baa lumay fi lxayaati addunya noloshii adduunyada dalla ficilkaas waan soo marnay wax badanaa loo isticmaalaa lumitaanka qofku uu xaqa ka lumo waa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaaloo kale qofka markuu xaqiiqada uu ka fog yahay sida markaan ku soo marnay nabiyullaahi yacquub caruurtiisii ay yidhaahdeen aabbahan maaragtay waa wuxuu ku sugan yahay dalaal oo wiilkiisii yuusufa saacaddaa nool oo waxaas uu sheegayo wax ka jira maaha xaqiiqada waa ka fogtahay dalaalka noocaasna waa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa waxa baabaa wadalla canhu maa kaanuu yacmaluun iyo waa wax tirtirmoo baaba'ay idaa dalalnaa fi lardi marka ku lunno dhulka oo ku baaba'no dalaalka noocaasna waa loo isticmaalaa aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati اddunyaa nolosha adduunyada waa kuwa camalkoodu uu baaba'ay oo acmaal aan jirin oo sharciga waafaqsanayn ayay sameeyeen marka waa ka lumeen oo ma haystaan wahum yaxsabuuna waxay u malaynayaan annahum ayagu yuxsinuuna inay wanaajinayaan suncan camalka iyo shaqada saasay aaminsan yihiin camalkooda in la aqbalay oo la jecel yahay shirca waa kaas hadda wax ka fiican iskuma arkaan sunnada inay ka fiican yihin isku arkaan maca daalika dadkii u wanaagsanaayey saxaabada nebiga ayay lacnadayaan har iyo hameen waxayna u haystaan ilaahay inay u dhowaanayaan lacnadoodaas caaisho iyo abubakar iyo cumar iyo xafse iyo kulli wax yaray ka soo reebay
marka wax ka jira male waa aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati addunya qur-aan kaley haystaan musxafkeenaan ma haystaan qur-aan kaley aaminsan yihiin waxay leeyihiin kaas kale waa laga tegey wahum yaxsabuuna waxay u malaynayaan annahum yuxsinuuna suncan inay maaragtay sancada iyo camalka wanaajinayaan ulaa'ika kuwaas aladiina kafaruu biaayaati rabbihim wa liqaa'ih waa kuwa ku kufriyey rabbi aayaadkiisa iyo la kulankiisa adduunyadii aayaadka allena waa diideen iyo xujooyinkii ilaahay waxdaaniyadiisii iyo rususha runnimadoodii daartii aakhirana oo la kulankii allana ayadana waa beeniyeen ulaa'ika aladiina kafaruu biaayaati rabbihim wa liqaa'ihi rabbi aayaadkiisa iyo la kulanka rabbi oo aakhiro daartii aakhiro way beeniyeen falaa nuqiimu lahum faxabitat acmaaluhum camalkoodii baa baaba'ay xabdiga waxaa loo isticmaalaa asalka luqada neefafka maaragtay qaarkood waxay cunaan cagaar sun ah markaasay caloosha fuurtaan markaasay dilaacaan marka camalkoodii si u haysteen wax fiican inuu yahay waa dilaacay eber baadiluu noqo halkaasu macnuhu ka imaanaya xabidat acmaaluhum camalkoodii baa baaba'ay oo fuuray markaasuu dilaacay falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaama maalinta qiyaamo uma soo joojinayno wasnan wax miisaan ah camal la miisaamo oo macno leh ma jiro ama iyaga laftigoodu qiimo ma leh miisaankooda lama cuslaynayo maxaa yeele khayr oo dhan waa ka marnaay wax aan jirinba ilaahay ku caabudayeen ama waxaa kaloo loo isticmaalay laa nuqiimu lahum yowma alqiyaama maalinta qiyaamo uma soo joojinayno wasnan wax maaragtay aabbayaal iyo qiimo ah wax qiimaa looma yeelayo dadkan ilaahay agtiisa waa ka liitaan xadiisaana ku yimid bukhaari iyo muslim ay wariyeen inahu layaأti arajulu alcadiimu asamiin yowma alqiyaama qiyaamada waxaa la keenayaa nin aada u weyn oo shilis ah laa yazinu cinda allaahi janaaxa bacuuda oo ilaahay agtiisa garab kaneeco miisaankiisa uma dhigmo waa wax xaqiira oo liitow iqra'uu in shi'tum wuxuu yihi nabigu akhriya haddaa rabtiin falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnan waxba lagama soo qaaday marka dadkaas weyninkoodi iyo qiimahood ayay isla lahaayeen dalika jazaauhum kaas waa abaalmarintooda jahannamu bimaa kafaruu sidaasaa lagu abaalmariyey kufrigoodii iyo aayaadka alle iyo rusushiisa ay ka dhigteen jaasjaas ayaa waxaa lagu abaalmariyey naarta jahannamo daalika kaas jazaauhum waa abaalmarintoodu jahannamu bimaa kafaruu bisababi kufrihim gaalnimadoodii waittakhaduu aayaatii aayaadkaygana waxay ka dhigteen wa rusulii iyo rusushayda husuwan kuwa lagu ciyaaro lagu jeesjeeso waxay leeyihiin maxaa maarata la timaadeen dad fiican idima raacin maxay tahay dadkii xoogaa liitay baadiya racyi ayaa idinsoo raacay marka aayaadka ilaahay iyo rusushiisii bay ku jeesjeeseen qofkii ilaahay aayaadkiisii iyo rusushiisa ku jeesjeestana abaalmarintiisa waxay noqonaysaa jahannam waittakhaduu aayaatii wa rusulii husuwan aayaadkaygii iyo rusushaydii ayay waxay ka dhigteen wax lagu ciyaaro mar haddii laga soo sheekeeyo dadkii liitay oo xumaay dadka wanaagsanna ayagana waa in markooda laga hadlo iyo meesha lagu abaalmarinayo ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat kaanat lahum jannaatu اlfirdowsi nusulan ina aladiina kuwa aamanuu allah iyo rusushiisa rumeeyey iyo malaa'igtii iyo aakhiro la kulankii alleh iyo malaa'igtii iyo maaragtay qadartii kulli iimaan oo dhan ina aladiina aamanuu kulli waa isku keenaya iimaankaasaa keenaya lixdii iimaanka iyo waxyaalihii kala dhan rususha lala soo diray
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وحبنا صامرنا مركي إيمان أي لي مادين حدنا عمل صالح وناكسن أي لي مادين عمل صالح أنا وصامرنا ومتك وافقسن رسوش الله وحي لي مادين فليعمل عملا صالحا ونوضب بيسا وإنه وافق شرعك إلهي ومارت وحي خالص إنه النقضه انت سالك الرب عملك صالحا وناكسن وإنه لله درتي الله سمايه شريعتنا ووافق سيهي لكن دون شريعتك لا يحسن هي عمل صالح عمل نغني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم وحاء أهاتي جنات الفردوس نزول المرتقات وحاء الرأي أو لغو مرتقات وجنة الفردوس جنة الفردوس مركوا أعلى الجنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حديث البخاري ومسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى أداد إلهي ويديسان إنسان جنة فردوس ويديستا فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وبيد الجنة أيضا كسب برقدان وأنا جنة في عن أو مارت فضلك بدن أوسط الجنة وأفضل الجنة هذا الاحتحاد كماهن وأنا أعلى الجنة إذا أصليس كانت لهم جنات الفردوس ذاتك إيمانك عملك صالح على يمين جنات الفردوس ما وحيونا غنيسا نزولا المرتقات خالدين فيها أيها كوارية جنات الفردوس ما شاسي كن نجيهين أيسا كسفرين كقبوبين كجرنين كدمنين لا يبغون عنها جنة أسمد البيان حوالا مالك وريكسدا لا يبغون عنها ولا يطلبون مرد البيان ومد دورنيان عنها جنة الفردوس حوالا مالك وريكسدا وحكى لما جعلب قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا أيضا وحكاة ليس الله سبحانه وتعالى كلمات كيسا هذه بدأ لقد خط وكلمات كالله لإرادها لقو قرأ بدي بعد مانيس ولبا هذا أيضا بدي كاس لكن آيات كلا وحي شاغن 7 أبحر تضوى بدل هذه لو صدر حتى بداس ما نفدت كلمات الله ودمانيا كلمات كالله أي هريا بدها دن أو خطأ أنقاص لغا دغنا ودمانيا قل وحترنا محمد لو كان البحر بد هدي أهان لهاد بيهدو مدادا لكلمات ربي مداد كوا أنقاص أما خد كلمات ربي لنفد البحر بدأ يا أمارة الرمان لهاد قبل أن تنفد كلمات ربي كلمات ربي أنت سلمان بدأ مركه إدلال لهاد ولو جئنا أملا نمادنا بمثله أصغى كلا مددا أو خدعة سيدا أمارة آيادا كلا أي شاكت 7 أبحر دي الغدرة قل وحتى لو كان البحر بدأ بيهد وهدي أهان لهايان مدادا خد هدي قل لهايان لكلمات ربي الغقرة لنفد البحر بدي بامارة لمان لهاد قبل أن تنفد كلمات ربي كلمات ربي انت سلمان ولو جئنا أبلن مادنا بمثله أسوى كلا مثل البحر وبد كلا مدادا أو خدعة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إلهي ورسولك محمد كل ياهي
kuwaan mushrikiinta ah ee ku beeniyey risaaladaada waxaa ku tiraahdaa anigu bashar baan ahay loo waxyooday allana waa mid keli ah waxaad idinku aawadiin oo boqolaalkan aaliha samaysateen waxba kama jiraan ayagu basharka had iyo jeer waxay ku dheganaayeen bini aadamku inaysan u ogolayn rususha ilaahay uu soo diray in ay wax dheer yihiin ma u ogolayn abasharun yahduunana bacatha allaahu basharan rasuula kulli saas dhahay akaana linnaasi cajaban ana waxaynaa ilaa rajulin minhum cajab iyo la yaabay la ahaad haddii malaa'ig loo soo diri lahay ama jinni maxay ka fahmi lahaayeen waaba nicmo ilaahay uu maaragtay noogu talagalay dad aan fahmi karno dabeecaddooda iyo luqadooda ayaa naloo soo diray ilaahay manni buu ku sheegay laqad manna allaahu cala almu'miniina id bacatha fiihim rasuula minhum qul waxaa tira nebi maxamedow kuwaan ku beeniyey innamaa ana basharun anigu bini aadan baan ahay milukum idinkoo kale ah bini aadan caadi ah oo taqaaniin jiranaya dhimanaya maaragtay wax cunaya wax cabaya guursanaya dhalaya sidaasa malag ma ihi jinnina ma ihi innamaa ana basharun milukum bashar idinkoo kale ah laakiin waxaa dhalay yuuxaa ilaya ilaahay baa i doortayoo waa la ii waxyooday rasuul baa layga dhigo waa la doortay ilaahayna isagaa og meesha risaalaadkiisa uu dhigayo iyo cidda ku habboon innamaa ilaahukum macbuudka aada caabudaysiin ilaahu waaxidun waa macbuud keli ah ee kuwo tiro badan ma ahan arrintaasna waa ka biyo diideen ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shayun cujaabi ilaahyadii tirada badnaayo hebel hebel wudi iyo suwaac iyo kadaa iyo hubal iyo waxaasoo dhan mi hal aba ka soo reebay waxay leeyiin arrin lala yaabo annamaa ilaahukum midka aada caabudaysiin ilaahu waaxidun waa macbuud keli ah faman kaana yarjuu qofka rajaynaya quudaraynaya liqaa'a rabbihi rabbigiis inuu la kulmo maalinta qiyaamo oo ilaahay u hortegayo la xisaabayo falyacmal ha sameeyo camalan saalixan camal wanaagsan oo shareecada ilaahay waafaqsan oo aan shirki lahayn ee khaalis ah ha sameeyo faman kaana yarjuu qofka rajaynaya oo ka cabsanaya liqaa'a rabbihi rabbi la kulankiisa falyacmal ha sameeyo camalan saalixan camal wanaagsan walaa yushrik yuusan la wadaajin axadan qof bicibaadati rabbihi rabbi cibaadadiisa qofna yuusan la wadaajin oo ilaahay cid wax loogu daro ma jirto hadhow waxaa lagu leeyahay anigu maaragtay qof wax loogu daro qofkii wax ugu daray ka raaso aniga haddaad samaysa shirki qofka ila wadaajisay ka raadso anigu ana aqna shurakaa'i can shirki anigu waa ka maarmay antum alfuqaraa'u ila allah wallahu alghaniyu alxamiid marka dadki waa looga maaro la-yahay shirkigaa dad u doodaya waxaa leeyahay ilaahay waa in wax lala baryaa waa in maaragtay asaga maaragtay moogiya dad kalaa maaragtay la soo maraa ayagaa maaragtay maamulka wax ku leh waxba kama jiraan walam yakun lahu waliyun min adulli wakabirhu takbiiran qof uu u baahan yahay ilaahay ma leh wasiir iyo muciin iyo nadiir iyo waxba uma baahno qof la taliyo iyo aadanaha waaas walaa yushrik bicibaadati rabbihi axadan qofna yuusan la wadaajin cibaadada alle ogaaw ducada waa ka mid tahay adducaau huwa alcibaada ducada laftigeeda waa cibaado marka ilaahay cibaadadii iska lahaay qof kale ayeeye iyo awoowe iyo qof kale ha siin suuratu maryam waa makiya wa aayaatuha 98 waa 89 aayadood
sagaashan iyo siddeetan waxaan ujeedaa 89 aayadood 98 suuraddan waa suuraddii 19aad markaan ka soo bilowno suurat ulfaatixa suuradaha makigana waa soo marnay waxyaalaha ay ka hadlayeen 4 arrimooda u waaweyneed caqiidada islaamka bacdiga iyo jizaha ay ku jiraan risaalada waxdaaniyada alle inahaasa aada ugu muhiimsanaay suuraddan ayadu waxay soo bandhigi doontaa ambiyada qaarkood qisaskooda oo laga bilaabo nebiyullaahi zakariya iyo wiilkiisii yaxya oo ilaahay u hibeeyey isagoo da ah haweentiisuna ay tahay madhalays taasina waxay tusinaysaa awoodda rabbi subxaanahu wa tacaala wax kasta inuu awoodo markii uu baryey oo ilaahay uu ka baryey in maaragtay uusan keligiis ka dhigin uu u sameeyo cid ka dhaxasho diinkan ilaahay ducadiisii waa ka aqbalay oo isagoo waayeel ah islaantiina waayeel ay tahay awalna aysan dhali jirin waa ducadii ilaahay ka ajiibay waladkaasna ku arsaaqay ambiyada ilaahay marka baryadooda dayasha noogu sugan rabbi bay leeyihiin meel kaley aadeen ama cid kaley baryeen ma jirto waxay kaloo suuraddu soo bandhigaysaa qiso middaas ka cajo badan kana qariibsan waa maryama oo wiil aan aabba lahayn ilaahay uu siiyey waa mucjiza lala yaabo bini aadamka 4 siyaabood buu maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala uu maaragtay ku sameeyey nebiyullaahi aadam aabbihii hooye midna ma lahayn ciiddaa laga abuuray sidaan qur-aanka ku soo marnay isagu waa halkaasuu ka bilowday ilmaha uu dhalay ayagana aabbe iyo hooyo ayay leeyihiin waa cagsigiisa isaga isagu aabbihii hooyo toona ma lahayn kuwa kalena aabbihii hooyo leeyihiin waxaa jira qofaan aabba lahayn nebiyullaahi ciise oo kale xawaa nebiyullaahi aadam baa feertiisa laga abuuray ayaduna hooyo maaragtay u abtirsanaysa male oo dhashay 4taas siyaaboodba ilaahay subxaana wa tacaala aadanaha ayuu maaragtay ku abuuray waxay kaloo suuraddu ka sheekayn doontaa nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam iyo aabbihiis doodii dhex martay kadibna ambiyo badan oo aada loo ammaanay nebiyullaahi isxaaq oo isaga uu dhalay nebi ibraahim iyo yacquub oo isxaaq sii dhalay iyo nebiyullaahi muuse iyo haaruun oo wada dhashay nebi ismaaciil oo nebi isxaaq la dhashay iyo nebi idriis iyo nuux oo ka sii horeeyey rusushaas baa aada looga wada hadli doonaa waana suuradda 3 meelood markii loo dhigo 2 meelood ayay maaragtay qaadatay arrintaas ujeeddada iyo hadafkana wuxuu yahay in la sugo risaalaadku inay midaysan yihiin rususha ilaahayna dhammaantood inay la yimaadeen inay dadka tawxiid uga yeeraan shirkigana ay tuuraan walaqad bacahnaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudu llaaha hadafku waa kaas wajtanibu taaguut suuraddu waxay ka warrami doontaa qiyaamada mashaahideeda wax ka mida iyo maalintaas dhibaatada jirta ay la kulmayaan dadku waxaa lagu khatimay suuradda ilaahay in laga nasaho walad iyo shariik iyo wax la mid ah dalaalaadka mushrikiintana ayagana waa la radiyey oo xujooyin cadcad baa lagu radiyey suuratu maryam marka magacaas waa maryama bintu cimraan magacaas marka waa la waariyey waa mucjiza oo waartay bini aadan aabala-aan laga abuuray weliba laga hadliyey isagoon gaarin waktigii hadal markii wax la weydiiyey uu hadlay waan arki doonaa iyo dhacdooyin dhalashadii nebi ciise yacni la socda oo maryama lagu karaameeyey suuratu maryam bismi illaahi araxmaan araxiim
kaaf haya cayn saad waa 5 kelimo kaaf ha ya cayn saad allahu aclam ujeedada iyo muraadka laga leeyahay ilaahay baa yaqaana nabiyullaahi maxamedna ma fasirin cid maaragtay ka horeysana ma fasirin saxaabadii nebigana ma fasirin xadiisna nebigu kuma sheegin marka sidaasaan u daynaynaa aslam ah waa xuruuftii aan soo marnay qaarna noo dambeeyaan suuraddan markii saxaabada nebiga ay u hijroodeen ardulxabasha oo maka ay ka tageen jacfar ibn abi aalibna uu hogaaminayey najaashi markii ay ku direen nimankii wafdigaa ka yimid reer maka quraysh oo hadiyooyin wax u keeneen qaybihii ku akhriyey suuradda awalkeeda ayuu ku akhriyey markaasuu najaashi ooyey kuwii la socdoo maaragtay asaaqiftii ahaana ayaguna sidoo kale ooyeen kadibna waa diiday in lagu dulmiyo dhulkooda nimankiina hadiyadoodii ayagaba waa celiyey aad iga tagi marka wixii ay nasaaradu aaminsanaayeen ayuu aaminsanaay markii uu suuratu maryam ku akhriyey waa ogolaaday maxay la iswaafaqsan yihiin dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya haadaa dikru raxmati rabbika waa rabbigaaga naxariistiisa sheegiddeeda cabdahu uu naxariisay addoonkiisa zakariya ahaay arrinkaasaa laga sheekaynaya haadaa dikru raxmati rabbika rabbigaaga naxariistiisa cabdahu u naxariistay zakariya ayaa laga sheekaynayaa waa nebiyullaahi zakariya calayhi salaam oo ambiyadii reer bani israa'iil buu ka mid ahaay weliba shaqada uu qaban jiray fii saxiixi albukhaari waxaa ku yaalla inuu ahaa najaar oo camalka gacantiisa u cuni jiray faryaamad marka waa shaqo loo baahan yahay birtu waa shaqo loo baahan yahay nebi daawudaa ku shaqayn jiray wa alannaa lahu lxadiid laakiin annagu wixii fiicnaay oo weliba baahi noo hayso ayaan caynaynaa oo qofkii samaynaya lagu caynay ole saasuu yahay waa birtu tuma xaggee ka dhacday ambiyadii ilaahay aan leeyahayba waaba shaqadoodii oo loo jilciyey alannaa lahu lxadiid id naadaa rabbahu wuxuu u naxariistay id naadaa rabbahu rabbi markuu u dhawaaqay nidaa'an khafiyan naado ama dhawaaq hooseeya hoos buu maaragtay u dhigay oo ilaahay buu maaragtay hoos u baryey lama jahrin id naadaa rabbahu nebi zakariya markuu u dhawaaqay rabbigiisa nidaa'an khafiyan naado ama dhawaaq qarsoon ducada saasay ku habboon tahay qofku inuusan la qaylin ee uusan hoos u dhigo qaala wuxuu yidhi waa kan rabbi naadadiisii yaa rabbi ambiyada waa kuwaas rabbi mid kasta rabbi uu leeyahay innii aniga wahana alcadmu laftii baa jilicday minii aniga xaggayga laftaydii baa dabacday washtacala ara'su shayban madaxiina cira ayuu maaragtay boosh buu noqday oo ciradii baa ku faaftay walam akun ma ahayn biducaa'ika adiga baryadaada rabbi yaa rabbi shaqiyan mid ku ayaan darsada ma ahayn hadda ka hor wixii aan kaa baryo waan helaya qofkana saasaa la rabaa ilaahay subxaana wa tacaalaa inuu malihiisa inuu kuu dembi dhaafayo kuu naxariisanayo inaad qabsatid ana cinda danni cabdii bi malahayga wixii uu iga malaysto ayaan ahay qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi zakariya rabbi yaa rabbi innii aniga wahana alcadmu minii laftaydu waa daciiftay oo tabartii awooddii ma hayo laftii baa jilicday washtacala ara'su madaxiina waa horay shayban cirow la horay oo asaga dhan ciraa qaadatay sidii wax dab qabsadoo kale ciradu mogtahay waa ku faafaysaa qofka marka ciraa ku faaftay madaxigoo dhan walam akun mana ahayn
شقيا بدعائك ربي دعاء أن كبريه ربي ومتكو أيان در الماء هين هذا كهر وإني أنيقا خفت وحن كعب صدي الموالية ذاتك قرابة إلى المعذرة يا عشيرة ذي قرابة إذا من وراء قدال كيغا هو أنيقا قدم بأيه وحن أعب صدي إن وحخر إقدح للدين كإنه وهي ساسا كبغي إني خفت الموالية من ورائي وأنا قدم بأيه وإقبر ميه وحن كعب صدق واس قرابة إذا إن مارت اللواية أنا الدين كإقدح له أنبياء وحلقة دحل الدين مال إيا حوالة من لقما دحلين لا نورث ما تركنا صدقة شين لقما دحلين نبي محمد يا أنبياء كهر رئيسين دينار يا درهم من لقما دحلين لكن وحلقة دحل دينك مركا وحو بقي إن مارت وح دينك كقادة إن لوايه وكانت امرأتي هوانتي إذا وحي أهاد عاقرا مثل ليس أنت سوى الجوغنا مقالين قد الدأبي جوغتا وكانت امرأتي عاقرا هوانتي إذا وحي مثل قالين عاقر كرقي الدمر بو الله استعماله عاقر لفتك عربي فهب لي الله إسي أو يهبه من لدنك أكتاد وليا mid maartay arrinkayga tawaliya yarithuni kaasoo i dhaxla diinka iga dhaxla wa yarithu min ali yacquubna isna ka dhaxla ilaa raa yacquub baaba'aan hadda maartay mar dambe waa nebi zakariya wuxuu maartay nabiyullaahi ciise iyo waqtigiisii ayuu maartay ku soo dhowaadaba oo yaxye oo wiilkiisa iyo maryama waa habra wadaag ibnaa khaalaw marka nabi maxamed wax yar u soo jirsadab laakiin yacquub goor maxaa dhow nabi ibraahim iyo aruurtii uu dhalay ayuu maaragtay ka soo jeedaa fahab lii min ladunka agtaada allow ii hibee waliyan mid arrinkayga tawaliya yarithunii midkaasoo idhaxla iga dhaxla diinka ويرث من آل يعقوب ندحله واجعله ربي يا ربي الله كدق متكاس أنيقا مارتي دحليا رضيا مترالي لغيه حولا إيا من مويدي سنة إيا منصب إيا إله ساس كدق إيا مايا واجعله ربي رضيا الله مترالي لغيه إله كدق أذيك أكتا هذا إيا ذاتك أكتا هذا من الله جعليه oo diinka iyo cadaaladda nin sameeya marka nabiyullaahi zakariya markii ilaahay uu bariyay ducadii baa ilaahay ka ajiibay yaa zakariya innaa nubashiruka waxaan kuugu bishaaraynaynaa bighulaamin wiil ismuhu magaciisa yaxyaa magaciisa waxa la yidhaha yaxyaa lam najcal lahu وما يرين يحيى من قبل هذا كهر سميا وحكو اسمه وحسمي أو مقعس لبحي مجرى إلا محمد هدي الويرادة أفكر على محمد الويرادة سمي ونغنى يا سماه مركب مقع إلهي بحيو يا زكريا إنا نبشرك وحكو بشارين بغلام ويل اسمه يحيى مقعيس الإرادة يحيى لم نجعل له يحيى اسميل من قبل هذا كهر سميا وحكم مقعه وصاكو اسمه إذن الله مبحين فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا طمعين وأقوى مركا شبهه قال ربي أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبار عتيا وتعجب إلياه والله بشارة إنه سقاطئه لكن عليه السلام فهما قال وحير نبي الله زكريا ربي يا ربي أنا يكون لي كيف يكون لي
sideeba igu ahaanayaa ghulaamun wiil wa kaanat imra'atii caaqiran haweenteeda waa ma dhalays waqad balagtu min alkibari aniguna waxaan ka gaaray duqnimada citiyan cutush meenadan soomaaliya saas umalayna asagiion taxriifino qofkaas waa gaboobay cutush carabiga marka waa citiyan waa weyninka meesha ugu dambaysa qaayada ugu dambaysa ayaa citiyan loo isticmaalaa rabbi annaa yakuunu lii ghulaamun sideeba walad iigu ahaanaya wa kaanat imra'atii caaqiran haweentaydu marka waaba ma dhalays qofa hore u dhali jirin cumrigeedii hore yaraanteedii waqad balagtu min alkibari aniguna waxaan gaaray weyninka iyo duqnimada citiyan cutush baan ka gaaray duqnimo meesha ugu dambaysay qaala wuxuu yidhi malagii kadalik arrinku waa sidaa lagu sheegay haweentaas ilmo dhalays ah iyo adoo cutush ah ayaa ilmo dhalaysa waa loo jawaabay tacajubkiisii wixiisii waxaa leeyahay arrinku waa sidaas kadalik qaala rabbuka rabbigaaga sidaasuu yidhi huwa calaya hayinun aniga arrinkaas waa igu fudud yahay inaan ayadoo ma dhalays ah iyo adigoo duq ah inaan ilmo ka keeno sababta awalba adinkoo waxba ahayn maniyaa laydinka abuuray hadda waxbaaba joogaba mid ciid laga abuura waa joogaa mid aabbala-ana waa joogaa waxba ilaahay dhib kuma hayso qaala rabbuka rabbigaagu wuxuu yidhi huwa calaya hayinun arrinkaasi waa fudud yahay hayin waa wax jilicsan oo sahlan oo fudud waqad khalaqtuka min qablu hadda ka hor waaban ku abuuray walam taku shay-an adaan waxba ahaynoo nudfo ah mani adigoo ah ayaa bini aadan siman lagaa soo saaray manidii isbedeshay dhiigay noqotay cad bay noqotay laf iyo maqaar iyo waxbaa loo sameeyey dha iyo caqli iyo waa kaas waqad khalaqtuka min qablu hadda ka horaan ku abuuray walam taku shay-an adaan waxba ahayn qaala wuxuu yidhi rabbi ijcal lii aaya ilaahu calaamad ii yaal marka calaamad iyo daliil aan ku aqoonsado ballanqaadkan ah ii samaysay si ay naftaydu ay maarata ugu xasisho waxaa ii yaboohday qaala wuxuu yidhi nebi zakariya rabbi yaa rabbi ijcal lii aayatan calaamad aan ku garto allow ii samee qaala wuxuu yidhi alleh aayatuka calaamadaadu allaa tukallima annaasa dadka waa inaadan la hadlin 3 layaalin 3 hameen sawiyan adigoo caafimaad qaba oo afkii waa sidiisii waa hadli kartaa laakiin hadalkii baa laga xayiray oo laga xabisay carabkiisa wax aan ilaahay xuskiisa ahayn looma ogola horena waa kusoo marnaa malayna arrinkaas markii wax akhrinayo masalaadiisa tukanayo waa wadaa laakiin qof uu la hadli kara ma leh qaala alla wuxuu yidhi aayatuka calaamadaada allaa tukallima annaasa dadka waa inaadan la hadlin 3 layaalin 3 hameen sawiin adoo caafimaad qaba oon jiranayn ma hadli kartid jiro kuma hayso cillo kale ma leh fakharaja calaa qowmihi qoomkiisiibuu ku soo baxay nebi zakariya min almixraabi mixraabku waa meeshii lagu tukanaya meeshaan imaamku galo halkaasuu ka soo baxay fa awxaa ilayhim wuxuu u ishaaray an sabbixuu bukratan wa cashiyan tasbiixsada galabtii iyo aroortii bukra waa gelinka hore cashiyana waa gelinka dambe kharaja calaa qowmihi min almixraab mixraabkii ayuu ka soo baxay fa awxaa ilayhim wuxuu u ishaaray u tilmaamay an sabbixuu tasbiixsada marka gacana la isku ishaaray ilaa afkii ma hadli karo an sabbixuu bukratan wa cashiyan waxaa maaragta u tasbiixsataa allah bukratan aroortii wa cashiyan galabtii
marka sidii baa maartay nabiyullaahi yaxya uu ku dhashay marka uu dhashay oo barbaaray ayaa kitaabka la siiyey yaa yaxya wiilkii waa loogu bishaareeyey waa yimid marka waa karaam diinkii buu dhaxlay yaa yaxya yaxyow khudil kitaaba kitaabkan qabso towrada weli shaqaynaysa biquwatin ila nebi ciise weli ma dhalan waa dambeeya isaga kitaabkii nebi ciise la siiyaa weli shaqaynaya yaa yaxyaa khudil kitaaba kitaabkan towrada qabso biquwatin xoog iyo awood iyo dadaal ku qabso dabacsanaan iyo maya ambiyada ilaahay caziimo iyo go-aana laga rabo yaa ayuha almuddathiru qum faandir warabbaka fakabir yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliilan dabacsanaan lama rabo waxaa la rabaa awood iyo caziimo ku qaadaa layidhi kitaabka wa aataynaahu alxukma xukun ayaan siinay murti sabiyan isagoo yar fahma iyo cilmi iyo caziimo iyo dadaal ayaa ilaahay wuxuu ku siiyey in kitaabkii isagoo maaragtay sabi ah faham la siiyo aataynaahu alxukma xukun ayaa la siinay sabiyan isagoo yar wa xanaanan baa siinay waxa weye maaragtay naxariis min ladunna annaga agteenna wa zakaatan iyo tahirsanaan ayaa siinay xanaanan aataynaahu alxukma wa aataynaahu xanaanan xanaanku waa cadfi iyo naxariis ayaa siinay wa zakaatanna waa siinay dahirsanaan oo uu nadiif yahay oo wax wasaq iyo dembi iyo waxaasoo dhan uu nadiifuu ka yahay wa kaana taqiyan mid alla ka cabsadana waa ahay wa baran biwaalidayhi labadiisi dhashay mid baari u ah ayuu ahaay baran biwaalidayhi labadii waalid mid baari u ah ayuu ahaay hadii jeer qur-aanku wuxuu ka hadlayaa oo sayna biwaalidayhi baran biwaalidayhi marka dad baa waxaa laga yaabaa labada waalid mid ka mida inay iska raacaan habartuba ha ugu badnaato markii odagii iyo habartu isku dhacaan in ay ilmuhu raacaan hooyadii weliba iyagoo laga yaabo dad waaweyn inay yihiin marka adiga waalidkaa baarinimadiisaa lagaa raba isku dhacaan labadooda shaqo kuma lihin haddaad labadooda wax ku samayn kartid islaaxin kartid hagaaji haddii kale mid walba si gaara adiga baarinimo kaaga rabaa walam yakun ma ahayn nabiyullaahi yaxya jabbaaran mid wax khasbo dirqiya oo daalim ah casiyan oo ilaahay caasiya ma ahayn nisyaankii iyo jabbaarnimadu ma kala foga waa ilma adeergu walam yakun jabbaaran jabbaarku waa qof daalim ah oo dadka dirqiya casiyan oo ilaahay caasiya ma ahayn tilmaamahaas o dhan ma lahayn wa salaamun calayhi nabadgelya korkiisa ha ahaato yowma wulida maalintii la dhalay wa yowma yamuutu maalinta u dhimanayo wa yowma yubcathu maalinta la soo bixinayo xayan isagoo nool oo quburaha laga soo saarayo waa axwaasha bini aadamku u tabarta daran yahay maalinta uu dhalanayo waa maalin aada u tabar daran yahay markuu dhimanayo nafta laga qaadayo sakaraadku hayana waa maalin ayadana sidoo kale baahidu ay daran tahay marka la soo bixinayana sidoo kale saddexdaas marxalaba waa loo duceeyey salaamun calayhi nabadgelya loogu duceeyey ilaahay nabadgelya korkiisa ha yeelo yowma wulida maalinta la dhalay wa yowma yamuutu maalinta u dhimanayo wa yowma yubcathu xayan isagoo nool maalinta lasoo saarayo qisadii nabiyullaahi zakariya iyo wiilkiisii loogu bishaareeyey iyo wixii ka dambeeyey tilmaamihii uu lahaa nebi yaxye halkaas nagu dhammaatay qisada labaad oo lagu xijiyey waa maryama binta cimraan oo iyadana cajaa'ib ah waxaan kaloo ku soo marnay suuratu ali cimraan aa maryamo ku soo marnay markii ayada laftigeeda ay dhalanaysay cajaa'ibay ahayd wadkur fi lkitaabi
kitaabka waxaa ku sheegtaa maryama gabadhaas maryama la yiraahdo waa magaceeda la sheegay idinta badad markay fogaatay min ahlihaa reerkeedii markay ka fogaatay makaanan meel sharqiyan oo xagga bari ah qoraxda meesha ka soo baxdo markay fogaatay markaas kitaabka ku sheeg wadkur fi lkitaabi maryama kitaabka waxaa ku sheegtaa maryama qisadeedii waa tii maaragtay lagu nadray in maaragtay beytka looga dhigo muxarar fataqabalaha rabbuha biqabuulin xasanin wa ambataha nabaatan xasanan wa kafalaha zakariya nabiga haddan ka soo sheekeynay kulamaa dakhala calayha zakariya almixraab wajada cindaha risqan ee laftigeedu waa taas idinta badad markay fogaatay ka sheekee min ahlihaa reerkeedii makaanan sharqiyan meel maaragtay bari xigta fatakhadad waxay yeelatay min duunihim dadkii sokadoodii xijaaban astur bay samaysatay fa arsalnaa ilayhaa ruuxanaa ruuxeenni jibriil baan usoo dirnay fatamahala lahaa wuxuu iska dhigay basharan sawiyan bini aadan siman bashar buu iska soo dhigay fatakhadad waxay samaysatay xijaaban astur min duunihim dadka sokadoodii xijaabay ay u samaysatay intay fogaatay fa arsalnaa ilayhaa ruuxanaa ruuxeenni malaku jibriil ayaan u soo dirnay fatamahala lahaa maryamo ayuu iskaga dhigay basharan sawiyan qaalad waxay tidhi innii acuudu biraxmaan allah raxmaankaan magan galay minka adiga niyahow basharka ah in kunta taqiyan haddaad tahay mid ilaahay ka cabsanaya wax xumaana iga ilaali qof nadiifa waa qofkaan dadna waxay leeyihiin maaragtay yahuud zaaniyad bay leeyihiin lacnatullaahi calayhim qaalad waxay tidhi maryama innii acuudu biraxmaani minka ilaahay baan kaa magan galay raxmaan ah adiga in kunta taqiyan haddaad tahay qaala wuxuu yidhi innamaa ana anigu rasuulu rabbiki rabbigaaga midu maarata rasuul uu soo diraan ahay adeega anugu ahay liahaba laki inaan kuu hibeeyo ku siiyo qulaaman zakiyan wiil dahirsanoo nadiif ah liyahabana waa jirtaa qiro kale oo isla macno liyahaba alla inuu kuu hibeeyo liahaba marka laki waa sida waa waxyiibuu ku socdaa isagu jibriil iskama socdo innamaa ana rasuulu rabbiki rabbigaaga rasuulkii u soo diraan ahay liahaba laki inaan kuu hibeeyo basharan qulaaman zakiyan wiil nadiif oo dahirsan qaalad waxay tidhi annaa yakuunu lii gulaam sidee baa wiil igu ahaanayaa walam yamsasnii basharun bini aadan maba ii tegin masiga hadda waa taabashadu waa jimaac qof i guursadaba ma leh walam aku baqiyan sharmutana ma ihi oo qof suuqa tagtana ma ihi ninna ima guursan waladku marka see ku imaanaya qaalad waxay tidhi annaa yakuunu lii gulaamun walam yamsasnii basharun masiga qur-aanka oo ku soo marnay min qabli an tamasuuhunna jimaaca lagu fasiraa qof ii tegay ma leh oo ninba ma qabo walam aku baqiyan sharmutana ma ihi qaala wuxuu yidhi kadaaliki arrinku waa sida laguu sheegay waladkaas ayaa lagu siiyey lagu hibeeyey qaala kadaaliki alamru kadalik qaala rabbuki rabbigaaga sidaasuu yidhi huwa calaya hayinun arrinkaas waa igu fudud yahay in maaragtay aabbala'aan walad lagu siiyo weliba walinajcalahu aayatan linnaasi dadka calaamad ayaa maaragtay laga dhigay wa raxmatan mina waana naxariis annaga xaggeenna ah wa kaana amran maqdiyan waana arrin la samaynayo laga maarmaan ah inay timaado
qaala rabbuki huwa calaya hayinu waa tii aan soo marnoo kale sidaasaa loogu jawaabay rabbigaaga sidaasuu yidhi arrinkaasna waa arrin sahlan walinajcalahu aayatan linnaas in laga dhigo calaamad ilaahay awooddiisa inuu isagu wax kasta uu abuuri karo aadam oo laga abuuray aabbala'aan iyo hooyo la'aan dhoobo iyo xawaa oo nebi aadam laga abuuray iyo adiga oo laga abuuray aabbala'aan ilaahay waa u sahlan tahay waana calaamad arrinkaas wa raxmatan minna waxaan ka dhignay wiilkan naxariis annaga xaggeenna ah oo nebi baa laga dhigay markii laga hadlayay nebiyullaahi ciisa markii malaa'igtu ugu bishaaraysay waxay yidhaahdeen ina allaha yubashiruki bikalimatin minhu ismuhu ciisa bnu maryam wajihan fi اdunyaa wاlآakhira wa min almuqarabiin wayukalimu الnaasa fi اlmahdi wakahlan wa min aلsaalixiin marka waa ilaahay naxariis calaamadna waa laga dhigay dadka looga dhigay ilaahay inuu sidaa wax u abuuri karo aabbala'aan iyo hooyo la'aan iyo aabbihi hooyo la'aan baa labadaba wa kaana amran maqdiyan waana arrin la samaynayo arrinkaas wallahu